Asxaabtayda qaaliga muuqaalkan maanta idiin hayo waa muuqaal cajiib ah. Wiilka dhalinyarada ah ee ku muuqda ee garamada buluuga sita wuxuu doonayaa masaajidkan inuu xoog ku soo galo maadaama uu cabsan yahay. Haddaba masaajidka ayaa loo diiday, waxa lagu yiri cabsan tahay dib u joog. Haddaba ugu dambeyn markuu masaajidka soo galo, wiilkan maxaa ku dhici doona? Isagoo sujuudsan ayay naftu ka bixi doontaa. Subxaanallah. Asxaabtayda qaaliga intaanan muuqaalka bilaabin waxaan iska codsanayaa inaad like-ta dhac kaga siisaan asxaabtiinana u sii share garaysaan. Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Wiilka dhalinyarada ah ee garamada buluuga sita ee kadinka taagan wuxuu doonayaa masaajidka inuu qasab ku soo galo, balse wiilka dhalinyarada ah isna uu ka celinayaa. Nin kale oo sheekha u yimi isna wuxuu leeyahay dib uga joog masaajidka, wada cabsan tahay dib u joog. Haddaba nin kale oo sheekhaasna meesha yimi oo la kala jooga bal kala jooga. Ninka laga celiyay isaguna cabsan ee laga celiyay masaajidka isna uu xanaaqsan yahay oo raggan uu doonayo inuu la dagaalamo. Masaajidka meedin kaale maxaad iga celinaysaan ana la sheekaysanina. Raggana wuxuu leeyahay ninkan uu cabsan yahay masaajidka ku fasixin. Odaygan baa yidhi haddaba aniga ii daaya aniga kaxaynaye. Ninkan cabsan wuxuu doonayaa ninkii ugu horeeyay albaabka ka celiyay inuu la dagaalamo. Haddaba odaygan baa la kala jooga. Aniga ninkan kaxaynaya. Ninka kalena wuxuu leeyahay ha ku sii dee ninka masaajidka waa nin cabsan ninkan dabada u saar. Haddaba ninkan ayaa kaxeeyay. Markuu ninkan wadaadka kaxeeyay wuxuu geeyay qaybtii lagu weysaysan jiray ee masaajidka. Wuxuu ku yiri weysayso qasabadii buu u furay. Uu weysaysanaya ninkii. Waa ka gacmaha maydh buu leeyahay marka ugu horeysa gacmaha maydh. Haddaba ninkan sheekha ah wuxuu tilmaamayaa qaabku u weysaysan lahaa. Ninkan uu nasteexaynayaa wuxuu isleeyahay ninkan u nasteexay oo si wanaagsan u soo dhaweey. Kadibna ninkii waa loo soo weysaysiiyay. Waa ka halkaas soo socda. Waa kaas halkaas soo socda. Isagoo sheekhi waa kuwa halkaas soo socda. Haddaba salaadii ayay galeen. Sheekhan baa leh sidaan anigu u tukanay adiguna u tuko maadaama nin cabsan uu yahay. Haddaba sheekhi ayuu salaadii la galay. Waad aragtaan salaadii bay galeen. Haddaba salaada markay galaan kadib ninkan maxaa ku dhici doona? Ninkan wuxuu ku jiraa daqiiqadihiisii ugu dambeeyay, sikimadiisii ugu dambeeyay ee noloshiisa. Adduunkan ayuu ka haajirayaa oo uu iskaga tegayaa. Oo wuxuu tegayaa gurigiisii xaqa ahaa. Balse isagu ma oga in noloshiisa sikimo yar oo kooban ay ka harsan yihiin. Subxaanallah. Ilaahu khaatimada khayr noogu khatun. Aniga iyo intii islaama. Haddaba ninkan saacado yar iyo sikimo yar ayaa noloshiisa uga haray. Salaadii ayuu ku jiraa iminka. Oo sheekhi ayaa leh sidaan u tukanay u tuko. Haddaba sheekhi ayaa tujinaya waad aragtaan. Sheekhu uu nasteexaynayaa ninkan si wanaagsan buu u soo dhaweeyay. Haddaba labadii kale dhalinyarada ah iyagu waxay doonayeen inay meesha ka caydhiyaan oo masaajidka ay ka eriyaan. Haddaba ninkan intuu adduunka ka haajiri lahaa sikimo yar baa uga dhiman. Subxaanallah. Ilaahay wuxuu soo biday inuu masaajidka yimaado. Bal ka waran. Ilaahay wuxuu u qoray ninkan inuu masaajidka uu yimaado oo naftu ay kaga baxdo. Haddaba ninkan sidaad aragtaan uu sujuudsan yahay wadaadka uu kacay. Wadaadka uu kacay wuxuu isleeyahay talo ninku muxuu kici waayay. Balse waa nin ay naftii ka baxdayba. Subxaanallah. Wadaadka isagu salaadii ayuu ku jiraa. Balse ninkan mar hore ayay nafti ka baxday. Subxaanallah. Bal ila fiiriya muuqaalka oo si wanaagsan u daawada. Haddaba wadaadkii salaadii ayuu dhamaystay. Salaadii ayuu dhamaystay wadaadku ka baxay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ula hadlay. Hibilow ula hadlay. Maxaa ku helay? Maxaa ku helay? Soo inay nafti ka baxdayba. Maxaa ku helay ay wadaadku leeyahay. Dhalinyaradii kala u timi. Ninkii bay roogeen dhinac buu dhacayba. Dam. Subxaanallah. Waa nin ay mar hore nafti ka baxdayba. Haddaba way yaabsan yihiin sheekhyadii ugu xisleen talo ninka maxaa helay. Soo kii iminka tukanayay. Haddaba ninkan sheekhi baa hubsanaya inay nafti ka baxday. Sheekhi baa yidhi nafti baa ka baxday ninkan. Subxaanallah. Naftii ayaa ka baxday. Bal ka waran ninkaasu. Markii hore masaajidka ayuu soo miciin biday oo masaajidka ayuu yimi. Isagoo sujuudsan ayuu dhintay. Dhalinyaradii masaajidka joogtay ayaa timi. Way fiiriyeen. Gacantay qaadeen. Waxay arkeen gacantiisu inay ay bari hore nafti ka baxday. Haddaba ninkan sidaasay nafti kaga baxday isagoo sujuudsan. Asxaabtayda qaaliga muuqaalkeeni maanta intaa ayuu nagu eegyahay. Sii share gareeya. Waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh. Waa inoo muuqaalka xiga insha Allah.